maalmihii ugu dambeeyay iyadoo si weyn bulshada Soomaaliland uga faaqiidaysa isla markaana uga hadlaya arrin ku saabsan mulkiilaha GSK ee ganacsade Axmed Cismaan Geelle oo la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay u gacan gelinayso dawladda Djibouti ayaa arrintaasi maanta waxa ka hadlay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac waxaanu tilmaamay in mas'uuliyiin ka socda banka BCIMR ee laga leeyahay dalkaasi Djibouti ay yimaadeen Soomaaliland isla markaasina ay tilmaameen in deyn lacag ay ku leeyihiin mulkiilaha GSK ayaa arrintaasi waxa uu tilmaamay in madaxweyne Muuse Bixi Cabdi uu guddi u saaray ay ka mid yihiin wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda haatana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire gudoomiyihii hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibrahim Baghdadi iyo taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland sidoo kalena afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu sheegay in ganacsade Axmed Cismaan Geelle uu habaalmarsan sharciga uu waraaqo uga qaatay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda isla markaasina uu sameeyay kicin dadweyne waa sida hadalka u dhigay afayeenku Maxamuud Warsame Jaamac afayeenka madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale waxa uu tilmaamay in ganacsade Axmed Cismaan Geelle ay deydayaan ciidanka booliska caalamiga ee Interpol waxa ayaamahan ugu dambeeyay warbaahintu ay waday arrinta shirkadda GSK ee mulkiile Axmed Cismaan Geelle iyo banka Faransiiska deyntii ka dhaxaysay waxaan halkan idinka soo jeedinayaa warbixin waafiya oo ku saabsan xaqiiqada arrinta iyo xooggaal u noqoshada xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa jirta deyn shirkadda GSK ee uu mulkiilaha ka yahay Axmed Cismaan Geelle ka qaadatay banka Faransiiska ee BCI oo qayb ka ah banka kale ee Faranska ee Bride kaasoo farac u ah banka caalamiga ee BBCE lacagtaas shirkadda GSK ku qaadatay maalgelinta warshadda Coca-Cola oo laga dhisay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle wuxuu qaatay deyntaas isaga oo muwaadin reer Djibouti ah haystana dhalashada Djiboutiyaanka muddo kadibna wuxuu soo wareegay soona degay dalkiisa Soomaaliland 12kii bishii Maarch 2018 waxa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yimi agaasime ku-xigeenka banka weyn ee Faransiiska ee Bride oo ah banka iskale faraca baan ee BCI iyo agaasimaha guud ee faraca banku ku leeyahay dalka Djibouti Master Nadir Sogi labada mas'uul ee ka socda banka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyna oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi Axmed Cismaan Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi waxa uu saaray arrinta guddi ka kooban wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire gudoomiyihii hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibrahim iyo taliyaha ciidanka booliska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Cabdulaahi Fadal Iimaan banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda GSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta ku kala qaateen ee ahaa haftada mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska ay uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisa qayb ka madahay kaga xayiran yihiin dalka Djibouti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dawladda Djibouti darteedna aanu u tagi karin halka sidaa daraadeed waxa uu ka goos qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si hafta sidoo heshiiskoodii ahaa bankiisa ka dhaxeeyay uu dhigay isla markaana uu banku dalbaday 15kii bishii February 2018 waxa dalka yimi safiirka wadanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti ee la xiriira arrinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle waxa kale oo sheegay in dacwad kan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol
xukuumadda Soomaaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo kaliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland maadaama ganacsade Axmed Cismaan Geelle hadda yahay muwaadin reer Soomaaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Djibouti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geelle yahay muwaadin reer Djibouti deynta banka Faransiiska uu ku qaatay isagoo muwaadin reer Djibouti oo haysta dhalashada Djibouti dood dheer kadib waxa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelina aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti midna waxa lagula taliyay ganacsade Axmed Cismaan Geelle in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsadu arinta uu ka cagajiiday sidaa darteed baankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaas oo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xiriira dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Cismaan Geelle sida curfiga caalamiga ah dhigayo waxa dhammaan waraaqaha lawyerku keenay ee ka soo baxay dawladda dalalka Faransiiska iyo Djibouti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dawladaha iyo hay'adaha dawliga ay magacooda sitaan waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraalada iyo waraaqaha isaga gudbaya dawladaha nasiib daro mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geelle waxa uu qaaday talaabooyinkan waxa uu si sharciga baalmarsan uga soo qaatay qoraalada iyo waraaqaha arinta dacwadda deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda talaabadaas oo gef sharci qoraalada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyay kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay qoraalada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwadda deynta loo sheeganayo ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Axmed Geelle arintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle doortay inuu sharciga ka talaabsado beela abaabulo dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo Soomaaliland indhaha caalamka ku soo jeediyo una eekaato meel lagula soo gabado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka ganacsade Axmed Cismaan Geelle waa og yahay waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpol ay raadinayaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u cadeynaysaa in dawladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade Axmed Cismaan Geelle si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda dawladda Soomaaliland iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah waxaana iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekaysiinaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambeyn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco aad iyo aad baad u mahadsantiin وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيون عالمي Somali Cable Hargeysa